weligaa ma ogaan doontid waxa dumarku ay rabaan ama ay jecel yihiin. qodobkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhacdooyin kala duwan oo ku dhacay ciyaartoy ciyaara kubadda cagta ay kala kulmeen xaasaskooda. marna ma ogaan kartid waxa dumarku ay rabaan. Pep Guardiola wuxuu waayay xaaskiisa maxaa yeelay waxay ku qaylisay ama ku cabaaday in waqti badan uu ku bixiyo kubadda cagta. laakiin haddii uusan shaqaysan lahayn xaaskiisu ma ay guursan lahayn Pep, sababtoo ah ma heli lahayn nolosha raaxada leh ay ku nooleed 30 sano oo dhan oo ka timid dakhliga shaqadiisa. markii lacagtu buuxisa akoonkeeda waxay rabtaa inuu hadda waqtiga shaqada iska yareeyo. hadda waa shaqadii uu noloshan quruxda badan ka dhistay. marka sheekadu waxay tahay ma fahmi kartid dumarku waxay rabaan. Kaka wuxuu waayay xaaskiisa maxaa yeelay waxay sheegtay inuu aad u fiican yahay isaga. intay isqabeen wax dhibaato ma dhicin. Kaka iyo xaaskiisa maysan dagaalamin, muusan qiyaamin, mar walbana wuxuu helanaa xaaskiisa. laakiin waxay ku eedeysay inuu yahay nin wanaagsan, aadna deeqsi u ah. ay ugu dambeyn xaaskiisa waayay. wuxuuna ku waayay keliya iyadoo sheegtay inuu aad u wanaagsan yahay, wanaaggaas tirada badanna ay kaga dhaqaaqday. haddii uu dhibaateyn lahaana way ka dhaqaaqi lahayd. marka ma fahmi kartid waxa ay rabaan dumarka. Kevin De Bruyne wuxuu waayay xaaskiisa maxaa yeelay Courtois ayaa qiyaamay saaxiibkii carruurnimo. De Bruyne wax walba uu siiyey dhammaan fasaxyadii ay rabtana uu ka bixiyey qarashka. hal safar ay ugu dalbatay in Spain ku tagto, wuxuuna halkaa ku waayay saaxiibadii maxaa yeelay Courtois ayaa xiriir la sameeyey xaaskii Kevin De Bruyne. wax walba wanaag ayuu u sameeyey, laakiin saaxiibkiisa ayay ka doortay. Lopez oo xilligaa ka maalqabeysnaa Icardi ayaa isna ku waayay xaaskiisa Wanda Nara maxaa yeelay Icardi ayaa iPad u iibiyey sanado kadib. waxa ay qiyaamaysay Icardi iyadoo la saaxiibtay ciyaaryahan kale oo saaxiibkii ah oo Icardi saaxiibkii yaraanta Max Lopez. kasto Icardi xaaskiisa mar kale isku soo laabteen. dumarku marna ma fahmi kartid waxay rabaan maxaa yeelay shakhsiyaadkan way wanaajiyeen, wayna ka dhaqaaqeen oo way waayeen xaasaskooda wanaagii badnaa ay sameeyeen. marka qaarkood hadday dhibaatooyin u geysan lahaayeenna ay ka dhaqaaqi lahaayeen. shakadu waxay tahay ma fahmi kartid waxay jecel yihiin ama ay rabaan. dhibaatana way ku baxaan, wanaag badanna kumaba joogaan. adiyaan sida u aragtaa sheekada.